halkani waa RTN. وبركاته كلنتي وناكسن داوديال ميل كastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka la hadal RTN oo alaabeen la socodsiyo anigu waa Maxamed Yimani barnaamijkan ayaanu waxaanu ku eegi doonaa khayraadka Soomaaliya si guud ahaan gaar ahaan shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah oo ay Soomaaliya hodan ku tahay barnaamijkan waxa marti iigu ah Cabdisalaan Xaaji Ismaaciil oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faalooda khayraadka Soomaaliya Cabdisalaan kusoo dhawow la hadal RTN ومحسنتي ودوه ugu horeyn waxaan jecelahay inaad si guud faahfaahin nooga siisid khayraadka Soomaaliya ay hodanka ku tahay iyadoo ognahay in badda ay Soomaaliya ay tahay badda ugu dheer Afrika lana sheego ilaa iyo wixii ka dambeeyay xornimadii Soomaaliya inay Soomaaliya ku jiraan kayd shidaal iyo mid gaas oo aad u badan oo xataa la sheegayo in ay sabab u tahay deganaansho la'aanta Soomaaliya khayraadka dabiiciga ku jira Soomaaliya tartan lagu jiro khayraadka Soomaaliya horta aad u badan yahay waxa weeyaan badana waa ku jira barigana waa ku jira 6300 kilomitir way badda Soomaaliya waa badda Afrika waa xeebta Afrika ugu dheer waa mid ugu qanisan hadana marka laga soo baro Kismaayo ilaa Seylac marka la eego waa dhulka ugu qanisan bariguna sidaas la eekay macdan buu leeyahay gaas buu leeyahay wuxuu leeyahay uranium buu leeyahay so many minerals baa dhulkana ku jira dawladii hore ee militariga ahayd iyo dawladii ka horeysay baa company reer galbeed ayay contract siiyeen oo maartay ay siiyeen baaritaan inay sameeyaan dawladdaasi heshiis waxay kula gashay kambaniyadaas wax la yiraahdo sharing profit sharing wax la yiraahdo faa'iido qaybsi wax la yiraahdo bay kula gashay oo di xalaal ah Soomaaliya inay lahato kuwii xud militariga hore iyo kuba isku style bay haayeen konton iyo 100% inay Soomaaliya lahaato oo khayraadka Soomaaliya uu ka dhaxeeyo gobolka Saaka yimaadeen kamaniga baaranina 49 inay yeeshaan horta saasay ahayd laakiin markii ay dhacday dawladda Soomaaliya burburkii Soomaaliya kadib waxa lagu talagalay inay Soomaaliya burburto si khayraadkeeda loo daneeyo iyo la daneynayay in mataqaana fursad laga helo oo marka taa fursad looga dhigto ujeedadaas ma guuleysatay marka ujeedadaasi waxa soo galay company private baa soo galay وبدأ يهين قبل هذا قارب لقى القلق قبل هذا لقى القلق لكن كل أقوم بمسألة كسوق هذا إنه حوي لبكم بني أو لبنين وهندي إليهم وكلم من شارو أو سجى كونترال لوسي حلق الشيخ شريف كونترال لوسي أفجوي أريد أفجوي يا بركة يا مقدسة أنت أقول حيسا جاسك أفريقيا وماشى وجبنا وكتير جاسك طبيعي جاي وحلو قياسي 20 بليون برميل إنه كتيره ومش أوتر وين كوبيلات بليون أو فوستو فوستو إنه كتيره أجار كمركة أفجوية إلا متقنا بنادر أريد أنت إسكوا إلا حيب تاسك ندرش أنت إسكوا هذا ومش أوبدن حق جاس طبيعي قوي بركوا حق كنترول وسي قلا داس نين هندي لها وحكر من شارع اللي هذا كم بنيجاس كل من شارع وحارس كل نين هندي أو شخص يقول له هذا سلفخار وحون opportunity الرأسية قبل هذا أفريقيا الدجال كتيران insurance buu galiyaa waxba ma qodo insurance ma lacagta ku qaataa hadda Soomaaliya waxa dhinac kale ma taqaana in bilaabmay Soma Oil and Gas iyadana waxa bilaabay nin Hindi ah labada nin waa laba nin oo Ugandese ah inteenan u gudbin Cabdisalaan Som Oil and Gas waxa rabaa inaan marka hore ogaado company Kilimanjaro xilligii dawladda Sheekh Shariif ma jirtay saxmin ay sameeyeen ama heshiis ay dawladda la galeen oo ay dhulka ka bilaabeen ama wax dhaqdhaqaaq oo area ay ka sameeyeen شخصيات بهشيس كلا جلين مارتي وايو الشركات هاك لالوش بيبيحيان موقت ودك waxay ku qarrabayaan waa laalush ka moogtid Afrika oo dhan lagu qaybiyay moogtaa marka waxa weeyaan kontraad baa la siiyay dawladdu ma siinin cid siisay lama yaqaano website-koodu waan jiray wax ugu yaala male laakiin waxa la kontraad baa la siiyay bay leeyihiin Soomaaliya aaw kontraad cid siisay Soomaaliya gas waynu naqaanaa wixii rekoorkeed wayn haynaa laakiin tan lama yaqaano la marka qoladaasi waxa ka eriyay oo markii dambe ka eriyay tartanka waxa uu galay Soma Oil and Gas oo rag madax leeyihiin marka Som Oil and Gas ay soo gashay hawada markay soo gashay Soma Oil and Gas qoladana madax ka saartay tii markii Soma Oil and Gas teedii la saxay kontraadii la saxay teer waxay ma taqaanaa sanadka biter website-keeda waxa soo galisay oo tiri waanu ka baxnay arrimaha Soomaaliya laakiin waxa weeye labada nin laba shakhsi weeye labada nin shakhsi waa ku tartamayeen ninka Soma laba nin oo Hindi waa laba nin oo Hindi ah
oo midna mataqaana British citizen yahay midna Canadian citizen aan gobol joogay Alberta Canada mar wada joogi jiray Calgary buu ka yimi labadan nin oo labada shirkadood oo oo martay tuugada ah ku shaqaysanaya kii Hindiga ahaa wuxuu ku guuleystay oo shirkadda Soma Oil ku guuleystay wuxuu la galay xisbiga conservative-ka ah ayuu u ahaa mataqaana fundraiser-ka lacagta siin jiray Ingiriiska David Cameron buu markii soo horeeyay tartankiisii u horeeyay oo soo galay 2005kii waa fundraiser-ka ragii u sameeyay oo jaraa'idka Ingiriisku ay qoreen oo hadii la Google gareeyay la helayo oo record-kii la helayo moogta wuxuu kamid ahaa dad maadaama uu sheegay fundraiser u sameeyay oo lacagta doorashada iyo waxan deeqaabta legal ugu sameeyay legal u baahed moogtahay oo ugu sameeyay de markii ay la gaaray mataqaana 2011kii buu yimi yiri Soomaaliya waa cilla sulfakhar baa ku jira oo shakhsi ah waa tabaryar waa kale oo kalmjaaro sulfakhar wato baa ku jirta khayraadka ugu badan afkooda la siiyay iyo markay gandar shabaab ninkii la siiyay inakuna aynu samaysano shirkad marka shirkadu ma jirto waa un fakarkiin moogtahay marka waa 2011kii waa 2011kii waxa la soo marka waxa in Turkiga ba soo galay Turkiga markii soo galay bil sidqi reer gabeesku waxay u arkeen Turkiga haduu Soomaaliya soo galay abaar xunina waa jirtay waxa loo arkay mataqaana in Soomaaliya ay dib soo laabanayso baa loo arkay waa Turkigu waa u hagar baxaya Soomaaliya waxaynu ku garanaynaa inuu hagar baxday 1 billion buu maalin kaliya ku dhawaaqay 12 NGO oo Turkiga oo nin Soomaaliya madax ka yahay nin Turkiyana uga hooseeyo oo ilaa xamar baa tahay ninka Turkigu wuxuu ilaanayaa lacagta ka Soomaaliyana waxa khadki baa la soo fuli baa la yiri laakiin shil ma taaban karo Turkigu waa ilaashanaya lacagtiisa si aan lacagtaas u bixin 12 hay'adood oo baa Turkigu sameeyay oo shaqada u kala duwan tahay baa 1 billion kisaas loogu qaybiyay marka xooyaan marka ninkii Ingiriiska wuxuu yiri marka waa in aan arintii dadajinaa si loo dadajiyo waxa la qabtay London 1 baa 2011kii dhamaadkiisii Turkigu markuu soo galay September dhamaadkeedu soo galay January waxa la yiri la sameeyay in qorshihii in lagu dhaqaaqo mataqaana London 1 lagu dhaqaaqo London waxa la qabtay shirkii koowaad ee Somaliland lagu qabanayay February 23 2013kii baa London la aaday marka la aaday waxa maartay London la aaday oo mataqaana si Soomaalida 40 dalan lagu martaqaaday dawladda dariska lagu martaqaaday ciidamada ku joogan waxa soo ururo kale oo danay lagu martaqaaday coverage Soomaaliya wax ka qabanayna wax baan ka qabanayna laakiin ujeedadu waxay ahayd fishing waxay raadinayeen sidii baarlamaanka Soomaaliya oo soo celiyay bilo ka hor batroolkii shidaalkii maartay heshiiskii ahaa badda Soomaaliya oo 200 mayl ahayd badda gudaha 12 mayl in laga soo dhigo sida Kenya oo kale oo Kenya la soo simo taas markii hore ka horeysay markii taas ka horeysay oo baarlamaankii soo celiyay baarlamaankii xilligii Sheekh Shariif shirka waxa fadhisay 333 xildhibaan كل عضو حق عنده وتاجين إن هشيسكي بدأ الصومالي للصايرة ومقدر of undersag وحلينا بكهلية مو undersag وحيد إلا جواد هلا بهيد لكن ده السيناريو behind وحي هيد إلا بيتون ما يلا قديجو واي مركي إلا بيتون الصحيحة ده أفر كبري أورهر قلبيدا أو من النرويج إلى هاي من التوتال أو فرنسا ولا هاي من إن مارت إيطالياني إن ولا أجيب هراء هجت من مريكا ولا هاي واتي دولت كي مركا يدو كترادا بحسينول كي مركا أي بحسين موقتاي ونسيت بالرهرة وبعدين ومارت دول هو أي تهاي موقتاي مركا أي كترادا بحسين برلمانك واقع سوء شيء يدو كترادي وحنا وحبك متجران أنت بربر كتيرين وح كتراد اللي بحيي حتاتي هذا شرط صور الفخاري وحنا وحبك متجران بين هذين ويتاسع صح موقتها مركا ومركا سوما أولجاس هوشة بلا بيسو و 2013 كي شركة لندن بين لا جانقات 2011 2000 كي شركة هالكاس لو قاضي شركة سولدون يو ما دام برلمان كانوا يساوي هاي سين وتخلصوا برلمان كان خد لو تخلصوا برلمان كان عد لو شقة سكر الراديو بدحونا لو شقة سكر الراديو قاب كاس برلندن وها اوكي لكن dadka waa ka qarsoona baarlamaanka loo tashanaya wuxuu ku dhawaaqay madaxweynuhu waa madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu baarlamaanka soo jeediyay oo baarlamaanka ka dooday shirka London weyn ee la aaday waa mu'aamarad caalami ah oo Soomaaliya lagu majaxaabinayo waxay yiraahdeen madaxweynaha Sheekh Shariif inaan ka takhalusno oo madaxweyne cusub aan doorano baarlamaanka ku dhawaaqay website baa la galiyay press conference baa qabteen dad baa daneynayay oo mataqaanaa dibadaha laga yimi in mataqaanaa doorashada ay qabtaan maalinta shirku u dhacay London 1 waa February 23 2002 xamarna waxa ka socda baarlamaanka maalinta inuu doorashadu dhacdo ومدحوين عصب الله دورته ولا الشيخ شريف واتوري لندن وحيو كيمي بنانك يجيران
annaka maaha in la yiraahdo barkeedadkaasi waxay ahaayeen dad wadaniina oo maanta mintiida abu baarlamaankaasi uu ahaa moogtahay waa intaan la dhixgelin oo faragelinta sheeyo ayaan aad u soo dhixgelin xitaa baarlamaankii ka sii horeeyna waa ka sii fiicnaa oo baarlamaanka Cabdullaahi Yusuf waa ka sii fiicnaa oo waxay ahaayeen kuwa ciidamada sheeyaha iyo faragelinta sheeyaha diiday bay ahaayeen waa kuwii magaalada Nairobi kuraas isu qaatay oo madax isu garacay oo dhigooda daadiyay oo cusbitaalka la geeyay maxaa dadkaas u dhimanayay ciidamada ajnabiga ah waa ogolaha ciidan ajnabi oo noo xasiliya laakiin dawladaha dariska ma ogolin bay yiraahdeen sababtoo ah issue la jira issue ciidamada dariska ah jiro xuduud baa jirta aan sheegnaa jira waxyaabo badan baa jira issue badan baa jira soo dan marka feer kama noqon karaan saasa baarlamaanku aaminsanaa marka London wana isaga loogu tashanay in laga takhaluso marka baarlamaanka sidaas sameeyay baad wuxuu leeyahay laga takhaluso okay waa laga soo gudbay London waa loo soo gudbay London Sheekh Xasan Sheekh waxa la doortay September waatii la doortay September 2002 alif baa la doortay January waxa uu yeeray oo 3 bilood kadib January waxa uu yeeray Obama President Obama marka uu yeeray President Obama oo isna November la soo doortay ayaa maartay January 17 buu la kulmay sharciga Mareykanka waa politically incorrect madaxweyne November la soo doortay inuu January isagoon la caleema saarin dhaartii isagaan marin January 20 baa la maraa Mareykanka sharciga Mareykanka constitutional January 20 baa la maraa haddii January 20 ay noqoto ahad Sunday ay noqoto January 21 baa la sameeyaa 17 ay tahay oo aan cid termkii la yahay cid wali aan caleema saartay oo loo dhaarin ila jagada marka lagu dhaaranaya moogtahay buu Xasan Sheekh la kulmay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee North America jooga baaktiviyada ka hadlay oo maartay isqabto yiraahdeen ma dhici karto lama kulmi karo waayo waa constitutional baa la yiri Soomaaliya waa la yeesay moogta waxa la islaha tan aad baa loo yeesay isna wuxuu islaha ka gaarsiibo islaha ka gaarsiibo la ujeedadu waxay ahayd in Soomaaliya gaarsiin dhiso waxay ahayd Obama wuu la kulmay wuxuu la yiri secretary-ga state-ka oo Hillary Clinton la sarka laba heshiis loo saxaa la sheegay labada heshiis inaanu badina Soomaaliya ilaalino beeratiska inaan ka ilaalino nimanka burcadbadeedka inaan ka ilaalino laakiin khidad baa ku jirta ko inaanu ashabaab la dagaalano oo dalka gudihiisa ka dagaalami karno oo soo gali karno labada noo saxeex laakiin tan way ku qarsoon tahay inay ku qarsoon tahay wax badan baa soo cadeyn doona soo wado okay waa 17kii weeye heshiiska la kala saxday maalintii waa la kala dhaqaaqay wii kadib waxa soo baxay New York Times-ka sanadkii waxay tiraahdaa boqolkii qof ee sanadka ugu loogu aqoon badnaa ee saameynta adduunka ugu saameyn badnaa inta la wacay baa yaa wacay White House kuma laga wacay maartay oo dabal oo loogu jira dabal laga leeyahay baa la wacay waxa ka dhigay madaxweynaha Soomaaliya waa in hebel lagu soo diro nambarka 58 buu soo galay waa meel dheer 58 hadda Xasan waxa la doortay late 2012 February January waa marka laga hadlayo journalka soo baxayo waa January baa laga hadlayo wax badan xukunka muu hayn wax badan xukunka muu hayn xukunka maxay waa 3 bilood haddii markii maalintii la dooranay ka hor haddii la guulgareeyo magaciisa lama aqooni saamuunta adduunka ku yeelanaya maxay ahayd arrintaas waxa way khidad ka mid ahayd in maskaxda looga dhaqo lagu maartay la yiraahdo loo koolkooliyo inta laga ma hadhin waa marka February January way February waxa looga yeeray mataqaanaa April waxa looga wadanka Ingiriiska laakiin April maxaa socda oo la sameeynaya London tuba soo socda oo wax walba lagu dhisaayo oo leeyahay wax walba lagu ogaado moogtahay February xagga la isugu sameeyay February 21 maxaa yimi balashadii boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth حسن رئيس وزراء كرس وكم جعاب وكم ارتقاد وليد ما ينتج أفريقيا كم ارتقابه لكن حواليك الضنين يو الضنين بري وش وصمين يو ما يحلق دقيقة مقتها سو وحن وقلاده بابا تقانا اللقية حسن مرت حكى ورا مركي الجرال كله صغري ولا بقول كي قف وسامين بدنابو وها وديانجرين بقولت مركي لوج 24 كي لما عشان كده محاجري أيرلند وحكى على جيسم كشركيسي جيسم كي ما لقوا مرتقاد Soomaalidu ma lagu walaalo how come on earth madaxweyne hadda la soo doortay oo aan xamar xukumin in jiisa uu martiqaado Soomaalidu aad bay wax ajnabi kama hadlin waxa dadkan minis waa lagu khaldayaa waa khaldayaad moogtay horan waan uga hadlayo TV dhowr jeer TV-na waraysi noocan waan sii oo ku jira YouTube-ka jiisa ma xasan tagay shirkoodii buu tagay waa la diiday sababtoo ah de White House-kiyo tendar sireed baa wurta meesha oo iyaga ijooday lahaay rag markaa jooga laakiin de kuwa kale waxay yiraahdeen what's going on maxay bay yiraahdeen moogta
markaas xasan meesha ka noqon la yiri iyadoo uu ka hadlay BBC da Voice America Soomaaliya uu ka hadlay waxaan ka qayb galayaa G7 baa lagu martaqaaday danaha Soomaaliya ka soo hadlaya bala de halka maatay waa human xun baa lagu soo sameeyay in la tagay maahan waa ka soo socotay waa gartay waa 24 bisha maartay waa April 24 26 laba casho kadib waa 26 waa London waxa marka la dhisay Somaliland gas xasan meesha joogaa inta waa la soo wada Soomaha Somaliland gas registration 26 waxa sameeyay basal shabloq oo hindi ah reer Ugandese ah baasaboorka Ingiriiska wata baa soo sameeyay 26 waxa soo process inta xasan saa loo wada martay waa wada London 26 Soomaha April May 7 ma qowd xisb kooy 10 casho kooy 10 casho min London tuba markii la isugu yimid London tuba markii la isugu yimid horta maadaama wuxuu khidad tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Saacid waa laga yimid London wan Abdulwali Gaasbo ha wuu yimid door weyn buu ka qaatay laakiin London tu si ila wax baa la dhisayaa markii hore waxay ahayd fiishin bay ahayd marka waxay ahayd kan iyo kan loo sheegay laakiin qoladan baa dalaayid wadatay oo cid ay keenanay cid ay ku fariisanay wax ay wateen bay ahayd moogtahay marka ra'iisul wasaaraha wadanka looga yimid ra'iisul wasaaraha dhamoodka looga yimid waxa marka maartay madaxweynihii iyo wasiirka arrimaha iyo xogaha yar oo baarlamaan dad la soo xulxulo yar oo maartay aan potential ahayn oo waxan garan karin conspiracy-ga kan dad aan garan karin wasiiradii dhan waa laga yimid yar baa la keenay koox yar baa la geeyay meeshii baa shirki baa bilaabmay 7 May markuu bilaabmay waxa dhacay arrimo badan baa 7 May dhacay okay basal shaqla wuxuu ahaa founderkii Somaliland gas wuxuu ahaa chairmankii Somaliland gas wuxuu ahaa ownerkii Somaliland gas waa saddex jago ninkii ahaa ha saddex jago ninkii ahaa May 7 hadda way ku qorantay martii website-ka ku qorantay May 7 waxa lagu magacaabay shirka Soomaaliya furmay waxa lagu magacaabay ra'iisul wasaaraha Ingiriisku ninkii xisbiga conservative-ka xilka kala wareegay oo 20 sano MP soo ahaa xildhibaan oo ma xildhibaan ma waa lord ku nomination xildhibaan ku doorasho marka uu isla markii uu retire-ka uu galay kana doorashadii ku soo baxay Cameroon baa ku soo baxay doorashadii ma ogtahay ninkii uu maartay ilan kan iska retire buu noqday Cameroon wuxuu ka dhigay lordka isaga magacaabo ma ogtahay boqorada hadana laga saxeexaa waa qaabka Canada iyo Mareykanka Canada iyo Ingiriiska ma ogtahay Australia ma ogtahay marka xooyan lord buu isla ka dhigay ninkii xisbiga haystay 20 sano MP soo ahaa hadana lord ah oo conflict interest weeye inuu shirkad noocaas galo waa conflict interest in shirkad noocaas galo baa waxa laga dhigay chairmankii way ku qoran tahay social media waa soo gashay maalintii loo magacaabay in May 7 tahay May 7 waa inta shirku socdo Soomaaliya uu socdo May 7 maxaa kaloo dhacay basal shablaq oo wax walba ahaa waxa la dhigay chairman u noqo how come on earth say ku dhici kartaa waraaba leh adaaba Germany adaaba waxaan sameysay adaaba waxa soo dhameeyay said vice German maarta u tagtaa aad u yeeshaa moogta vice German noqo laakiin ninka kan baa la yiri baa maarta wax socodsiinayo wax kala waday macnaha waxa ninka Hindiga lagu kalsoon lagu shaqaysanaya kootadiisa meel qorshihiisa muleeyahay laakiin nin lagu kalsoon yahay waa labada nin ee saaxiibka shaqada wada karaya oo shaqada isla la moogtahay okay intaas aa dhacay May 7 maxaa kala dhacay wax badan baa dhacay inta hadda waa isku maalin waay oo inta tan wada related la May 7 maxaa kala dhacay waxa dhacaya shablaq iyo wiilkiisa Iryaad shablaq ilaa 99kii ilaa waqtigaas maalintaas May 7ka dawladda Mareykanka dacwad baa u socotay Virginia oo federal court martay intaas u socotay oo ninkan isagu hindisaha lahaa ee asaasay company-gan ninka asaasay weeye ha recordkiisa saas wala helay wax walba la helay baa soo saaray ninkaas dacwad baa inta u socotay maxaa lagu haystaa fraud baa lagu haystaa Mareykanka fraud waa dambi nin fraud dambi lagu haysto weeye maxaa marka dhacay May 7 maxkamadiisa baa short loo yeeray marka waxa la yiri dismiss baa la case-kiisa war maxaa isku soo wada aaday waxan oo dhan kiiskiisi waa la laalay xaq Mareykanka yaa laalay White House kuma uu eedanaya anigu sababtoo ah Xasan bay u yeereen waraqay ka saxeexaan Xasan bay journalka lagu soo qoray journalku Xasan ma yaqaano hay ninkana waartay ninkii dambi maal ma ogtahay dawladda Mareykanka hadda dawladda Republicanka hadii la arrinta hal la baaro waxa way dambi weyn oo dhacay weeye Mareykanka ka dhacay weeye warninka shirkadaha Mareykanka oo taagan inta waa shirkadaha Mareykanka u taajirsan maxaa lagu soo eedeeyay stock exchanges-ka ayuu xog manipulate gareeyay markuu manipulate gareeyay waxa weeyaan price-ka hoos buu dhacayaa
shirkadihii waa kaceen waa shirkadaha waaweyn Mareykanka markaasaa la deyn waay ilaa 99 ilaa maxkamad intaa waa socotaa waa dhammaan weyd Mareykanku waa ka qadci waay marka kiiskii meesha waa laga saaray kiiskii maalinta May 7 oo London la fadhiyo baa laga dhigay May la fadhiyo baa laga saaray halkaas London feesta kale lagu qabtay inta oo arrimood baa May 7 dhacay maxaa kaloo dhacay waxa la yiri UN-ka ninkii ka joogay haaba taqanayo representative-ka UN-ka baa laga bedelay waxa laga dhigay nin consultant oo saaxiib yihiin ninka la yiraahdo Cameroon saaxiib yihiin waa ninka hadda jooga ninka ka horeeyay nin consultant party-ga buu ahaa isaga ninka laga soo dhigay maxaa UN-ka ninka jooga wakiilka loogu keenay ninka loogu dhigay danahan buu ilaalinayaa shirkad UN-kii baa lagu shaqaysanaya oo tool ah oo instrumental loogu shaqaysanaya oo la keenay intaas oo dhan ba isku maalin dhacaya shirka waa laga soo dareeray martaqaana shir xamar baa la soo aaday shirkada marka waxa ku qoran ninka shablaq baa ku qoran oo abriil ku qoran May nin walba maalinta ku soo lagu qoray iyo dhalashadiisii waxaan ka soo qaaday credit bureau Ingiriiska ka soo qaatay waa lacag bad bixinaysa waa legal wax walba ay ku siinayaan waa legal weeye ma ogtahay waxaad qarisaa maxay tahay way inaad hadii kale waxaad qarinaysaa ma ogtahay okay marka labadaba ku qoraa xamar baa la soo aaday xamar markii la soo aaday baarlamaankii waa jahwareer baa ku dhacay May oo markii la soo laabtay 22gii waxa laga keenay motion saacid ما ساعد ولا غيره ومش لا غيره استفرستر هالشو إلا أنت عن دبته وبحن وأنت عن وفد قابلين وأنت وحن لقى قرينيو وحن دولتي حسن شيخ إلا كيني وحي أنت ودسنا شكدا اسمه هذا ولا لقيت فدراليسك بلاديساي ولا لقيت قبلتي ولا لقيت دستورك ولا لقيت محاكمتي دستورك هذا ولا لقيت نبت قليدي إلا سؤالي ولا لقيت عيدا الصومالي إلا رسول ولا لقيت مانديت كي إيجاد إن ليراه وحنا لقى بحو حياجي ما تعرف so many important national priority إنها أردن ما ماشي لقى صاري priority وحنا قد صوم ويا بس سيلور سلها marka 22 May markii muqdisho lagu soo laabtay maxaa dhacay markii muqdisho lagu soo laabtay May 22 baa la soo laabtay May 22 baarlamaankii motion bay ka keeneen motion markii la keenay qadar xildhibaan dhihin diblomaasi qadari ah baa lacag ka soo dejiyay airportka muqdisho aadan cadi toos baa looga soo qaaday villa Soomaaliya la geeyay sharaa'idkii waxay sheegeen in intaas ay sheegeen laakiin amount-ka lacagta ma naqaano baarlamaankiina waa shirsan yahay in motion in la area raba saacid la area la dilay marka shaqadiisii uu qabsan baa leeyahay waa in kan shaqadiisii uu qabsan waa bal waqti ma qaabilayo meel ma aaday waa kan halkan uu fadhiyo baa uu leeyahay moogtahay okay nimankii lacag baa loo qaybiyay lacagtii markii loo qaybiyay motionka waa laga noqday marka waxa la doonayaa saacid in la isticmaalo la doonayaa saacid markii meesha loo magacaabay horta rag badan baa orday 53 nin baa orday oo wada aqoonyahan oo wada experience-ka baa la soo qaatay isaga lagu magacaabay 10 wasiir ka dhig baa waa lagu khasbay golaha wasiirada way wasiirada ayaa waxa saxinay haday bataan in wadaniina ama maskaxda Soomaaliya la waayay maayo oo hadasha xitaa hadii cod looga qaaday TV-ga ka mayga soo qabsaday la waayay maayo 10 nin ka dhig baa 10 baa la yiri gabadha ku jirtay laba gabdhood 10 baa la yiri ka dhig 10 waliba la soo xulay oo aad loo tuujiyay oo la huba baa la yiraahdo laga dhigo oo la soo xushay xasan oo soo xulay hebel la soo xulay ماشي 4.5 ahayd oo de wixii lagu heshiiyay 4.5 ku heshiisanayna waa laga baxay 5 baa laga dhigay sababtoo ah waxa la doonayaa 5 beelood oo min laba ah oo rag la hubaa inay yimaadaan sidii baa la yeeray 5 beelood baa laga dhigay oo la buuxiyay marka hadda waa laga noqon doonaa 4.5 kii abin beesha la buuxiyay half ka ahayd hadda waa laga noqon doonaa laakiin marka Soomaa oo yeelgaas in sharciyan baa laga rabaa sida dadka loo bahdilay baan doonayaa aan ku sheegay moogtay dhinac walba laga bahdilay marna 5 baa laga baaytibaatiin marna waa la isticmaalo bifuul baatiin codna siiya oo dad la hadlo codna siiya markii codkii bixiyana waa la eriyo waxa la yiri hayma pointigiina ku noqda ayaa la yiri moogtay waa disaster moogtay okay isaga 10 kaas uu ka soo dhigay 10 kii uu ka dhigay okay waxa la badbaadiyay mushiki waa la badbaadiyay waxa loo gudbay July baa loo gudbay July markii loo gudbay August first waxa loo soo magacaabay shirkadda CEO yaa loo soo magacaabay waxa loo baday Shibar yuha waa friend of Obama president Obama jaamacadna waa ka soo wada bixin xisbiga dimuqraadigu ahaa wan Mareykan ma wadanka qabiil waxa xisbiga waa moogtahay wan Mareykan oo dimuqraadi Obama jaamacad ka soo wada bixin ninkan waxa lagu magacaabay oo website-ku soo galay magacawgiisii August 1st 2013 August 6th heshiiska xamar buu ka dhacay xalani
shan maalmood buu ku magacaabay ninka Mareykanka xalan u fadhiya isagoo soo fadhiya isagoo shablaqi iyo kii Ingiriiska saddexdooda kaliya baa markaa ku qoray shirkadda waa saddex nin markaa bay halkaas media hadda ku jira sawirkoodii oo meel walba ku jira social media aad u gashaa sida dadka Soomaaliyeed anu wacyi galiyay wax kan u arkay wadankooda la boobay moogtahay okay ninkaas loo soo magacaabay waa 6 August markay soo baxday waxa ka horeeyay meesha loo socda waxa weeye waa Jubaland dhulkiisa aad bar xilligiisii Allahu naxariisto la sahamiyay oo Kenya mar ay bixisay oo 8 ceela baa loo socdaa in la siiyo qolada oo halkan la hubaa meeshan la hubaa moogtahay baa la rabaa halka in la siiyo laakiin shuruuc kale waxba kala ka hormaan doono oo moogtahay gadal bay jiq ku noqon doonta qoladii gelitaanka ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya ma dhigi kara qayb ka ah qorshaha gelitaanka ciidamada Kenya number 1 bay ahayd waayo Kenya ma state gareynba ما به السد قريب شكل ما يقلين به إثيوبيا كان مركي ورا مركي اللي قال من السنة ولا بشر بديده من السنة ولا بشر بديده مركي اللي إذا إثيوبيا حقلا ومحاكمته هل الريدو ما يمرك محاكمته بوش لا دجالمي وبوش محاكم ولا دجالمي لكن بوش قرشي سماهين أرشي ذا لكم علىهين انترفيرس دبوق وحسنا مركب بلان إلا حتى الصبح منه الشاس اللي يري والحال أو أريد تشوبلان بيكويلا ما دين عبدا مسوي دين عبدا ما هو بدا سوي كذا كسادة جوجل كريسو ويكون صباح بدا بيكويلا هذا سوي كواسو ضابع يسوي ضابع عمان هسه سوشيال ميديا يكوشيرا وعلامة سيء عيال شيء صاو علامة وسدد هذا اللي إحنا كمري متقنا رجل البيت كان لسه موقتها مركا وأنا كيس كده وياه محكمة الدنيا وهذا يالو تا محكمة أدوك وجود بيسين دون وسوق اللي دونه لكن هو تبروسيس كور دونه أنا أشرحه بركة شو بلان إني لسنتو كونسبيرسي جاي كم يضاهي إن الله لسين صابته وحال ورماشن هدي جو بلان لسنتو سيدا سومالان يبوتلان يحولا ويسسو تاجي يانيو شر يوحبه كهلا يانيو وضوح كلا جراني موقتا وما أديس حواش كونسوشن اللي موقتا شر يوحبه كهلا يانيو وحبه كتو وين قال خلق لنا يان حتى إلى بقول كبا بقول بالسي يكا موقتا بركة كترى الله صحيح 100% وحال سي 60,000 لحدا نكون سكوير أو كيلومتر وبدأ from كسماية to إله وحيقول لك تا ودما بدنو أفريقيا بقى أنت هالليك طلياني قا أنت هسكودو دو أنت وكلمة 100% بروفيشنال ما اوكي waxaan rabaa inaan fahmo daawadayaashuna ay nala fahmaan halkaan yara cadeyno company-gan Som Oil and Gas yaa Soomaali oo ku jiray ama hadda ku jira yaa share ku leh si ay u fahanno faa'iido qaybsiga sida loo qaybsanayo اوكي markii heshiiskaas uu dhacay 100% saddex nin bay ahaayeen moogtahay cida ku qoran oo cida ay markaa boorka soo galo iyo kale baynahay moogtahay waxa ku xigay bish laba bil kadib August halka 6 keedii baa August September October 7 keedii golaha wasiirka lagu soo cesho waxa la yiri war wasiirkii macdanta kaliya Cabdirasaaq waa saxeexay Cabdirasaaq waa saxeexay moogtahay waa in ratification la sameeyaa baa la yiri marka hada waa la buru karaa ratification xaq waxa wala baarlamaankii baarlamaankuna waa in arinta waa laga qarinaya oo ma oga waa ku saacid beeriyay moogtahay marka waxa la yiri saacido golaha wasiiradu 10 wasiir soo ansixiyaan كله وزيرة طبعاً كها وسعر فريا باوحي هذا ratification بانو سيناي لندن مركا حفلات بالله قفت صوم هو القاس هوتيل بحفلات قابتين مركي كتراد اللي سي سبتمبر أغسطس 6 يا مارت أكتوبر 7 مركي ratification اللي سميبه ولين ما يقان مارتي وحلا ما يقانو مركا ساعد بهرت الإيريا ساعد ما دام صحيح بحيي مارتي ratification كي بالين هالإيريا ده نكسان كإيرينا وحال الدولة صار خلاف ولا شو 5 وزير بولي marka hore toban baa lagu xiriiray moogtahay 5 oo ku fadhiya 4.5 buu keenay markuu keenay baa la yiri niyahow la bax baa la ruuxaan yaa buu waaba wareeray hadal baa lismo gaarinba waxa la saacid baa la iri markii la iri waxa baarlamaanka maartay motion haka keeno baarlamaankii baa kharash la siiyay wal iyada bixinaysa waxa kan ila cid kale yaa bixinaya moogtahay kooni ma bahaysan iyaga marka baarlamaankii markaa saacid ka keenay heshiis waxay ka keeneen mooshinka markay saacid ka keeneen xaq wuxuu u leeyahay saacid inuu baarlamaanka horta u istifaaco waxa la yidhi baarlamaanka imaanay walodi ninka sida loo bahdilay aad macna arintana meesha lagu qarinayo waxa la diidayaa saacid waxba og yahay at least inuu yiraahdo war waxa la yeeray arintan inuu yiraahdo at least dad iska dhigo oo hadlo laga baqayaa oo baarlamaanka markuu sheego la yiraahdo no ninka la yeeray maayo
ila haday ogaadaan baarlamaanku meeriyaan moogtay waxa loo oreeyay in shirkada loo shaqeynayo baa marka baarlamaanku u cadaanaysa moogtay marka waxa weeyaan Saacid Yuusuf baa la yiri warbixin buu qoray Saacid sidii xilka looga qaaday markii xilka laga qaaday baa marka loo soo jeesay shaqadiisii socotay waa marka October 7 November 13 baa la soo gaaray 13 November baa waxa la yiri xamar beelaha dega inuu ku banaan bixi kara haday ogaadaan waa shacab Soomaaliyeed oo wadaniyo weey oo aad loo bahdilay oo kuntu Ethiopiana baxamar soo galay genocide ugu xumaa baa geeska Afrika ka dhacay oo mataqaanaa dadka xamar sida loo laayay Ethiopianku marka ay soo galeen dadkii waxa lagu sameeyay baa xamar jooga marka waxa laga baqayaa dadkii inay kacaan inay ogaadaan marka waxa la doonayaa dadka caburiya la rabaa oo sortaago nin walba jilibkiisa yiraahdo haye ana meesha ku jira haye ma inaga ku jira xamar in la seexiya la doonayaa waa maartay ragabad ku maartay bariga Afrikaanka la dhoofin jiray adoonsiga waxa la diibi jiray labadii qabale issue ka dhaxeeyo baa wax la isugu dhiibi jiray qabiil baa hub la siin jiray oo dhijray soo qabta qabiilka waa qaaqaawihii way soo dhameeyay markay soo dhameeyay qabiilka hubka loo dhiibay sida qoryaha loo rido la baraa waa qoriga la qabiilkii hadda soo qabtay kala soo qabta sidii baa mataqaanaa inaka kaartadii baa qarniga 15aad baa inakana leeyna ku dabaqay waxa beelaha xamar dega daynile iyo wardhiigle baa wuxuu weyn xasan sheekhna waa ku jira oo madaxweyne la keensaday weeye waxaan ninkaas sameynaya weeye daynile leeynaha laga keeno xasan baa keenay in khayraal xasan khayraal la keenay wasaaradda xilka haya hadda jooga suu ku soo baxay weeye waxa la doonayaa daynile inuu banaan bax sameeynin day xamar baa dega waa banaadir iyo daynile iyo wardhiigle beelaha kale ee galmudug dega iyo hiiraan dega waxa la soo keenay qorshe ah oo aad u socday oo la waday oo ciidamadii maatay ay wadeen Itoobiyaanku wadeen in xamar laga saaro dagaalka laga saaro xamar laga saaro xamar marka lagu dhibo dhalinyarada la xiro dhalinyarada galguduud oo dhan xamar baa waxa guriga la baaraya marka loo gaado xagee ninka waa galguduud waa la xiraya maxaa baalidkii loo sheegay ninka waa shabaab baa la leeyahay shabaab baan ugu shakinay shabaab marka waalidku waa baqaya okay xasan cali khayr ra'iisul wasaaradda xilka haya kaalin intee leeg buu ku lahaa marka kambaniga okay inta hore waxba kaalin kuma lahayn laakiin waxa uu loo keenay member baa laga dhigay 1% baa la siiyay waa bahdil kale oo Soomaaliya la bahdilayo website kiisa ugu qoraya xasan khayr 1% waxa waa 2 milyan oo lacagta Ingiriiska ah ama 3 milyan oo dollarka Mareykanka iyada nafteeda xasan khayr wuxuu ahaa directorka Norwegian Refugee Council oo East Africa ahaa 3 milyan oo dollar qofkaas ma heli karaa ilaa mushaar buu qaadanayay way adagtays waa Soomaaliya man dhaqansay ku timi laakiin waxaan dhihi karnaa waa un qofkeen baa la yidhi ka shirkadan waxaan soo dhaafay shirkada waxaa maalgelin Ruushka maalgelintan iyo sheerarkan iyo waxaan Ruushka bixiyay nimankan abaabulka wada conservative-ku shaqadii bay sameynayaan oo farihii bay kula jireen dhaqaalaha Ruushiyaan baa iskale dhaqaalaha ninka Ruushka bilyaneerka iskale ma ilaa hadda waxa marayna Hindi Ugandis asalkiisa sharci Ingiriis haysta ninkan Obama ay saaxiibka ahaayeen oo meesha la yiri maamul qoliyaha Ruushiyaanka oo iyaguna maalgelintii la hadda bixinaya iyo xasan cali khayr la siiyay boqolkiiba November 13 baa lagu soo diray oo xasan khayr lagu soo diray in Soomaaliya baa lagu soo diray ma ogtahay kambarigu wali shakhsi oo hal qof oo shaqaale marka loo qoray wan shakhsi oo shaqaale ah kambariga wadanka 60,000 square mile khayraadkii badda Soomaaliya ugu badan hayaala kambaniga loo qoondeynaya hal qof oo shaqaale ah buu leeyahay halka qof ee shaqaalaha isagana 1% baa la siiyay waa interest moogtay ila mushaar kambaniga dhaqaale ma le moogtay waxa war 1% wixii soo baxay leedahay 1% waa malaayiin buu noqonayaa hadhowto baa la yidhinayo inuu ku magacaabino oo adigu faylasha iyo website-ka update gareynta iyo waxa ay telefoonadooda hadii cid soo wacdo email soo dir telefoon ma jiraan isku dayna waa moogtahay waa xafiis xiran waa qolka soo xiran ma laga qabanay markaa waa ma jiro ma jirto hada isku day hadda rawici kartaa ma cid ka qabanayso iyama ma joogtaba telefoonada website-ka ku qoran hadii lagu lama qabanayo cid ka qabanayso ma dhacayaan laakiin ma dhacayaha laakiin laga qaban cid ka qabanayso waxa weeye waa maartay waa for example website-ka la gelinayo inuu jiro address buu jiraa ma ogtahay inaga waqti ka faa'iideysanayna markii dambe xasan cali khayr ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo magacaabay wuxuuna si public u sheegay in uu percentage-kii kambaniga kala baxay maxaa xigay markaa waxa xigay markii xasan khayr la magacaabay 23 February ba xasan khayr la magacaabay markii la magacaabay way soogaayeen qolatan markiiba habeennimadii waa laga saaray waa la update gareeyay website-kii
ولا أبديت قري وحل حس خير وبحي وبرسنت تيجي شغلكم لها بس ولا بدلي أنا قول كبري 100% كيس كله حس خير واقع بحالي عيد ما لقوا بدينا مركزك عيد لقوا بدلي سوماليا السومالي اللي مسوا بدل 100% وحس كله نمك يبغى إسكالي بقول كيف بقول كيف عنده إسكالي بركة كونس سومالي مالك ما سوق شاطر سومالي مالك ما سوق مال أي كسوق الشمالي بعد وحابة يرد سومالي مالك كسوق الشمالي وحابة تقنا نيكا روشكا سجى وحول ببحيي نمانك اللي راح إنجليز كونسرتيف كنا هوش أي وضعان halka kan White House kuna wuxuu waday maartay oo xisbiga dimuqraadiga rigi markaa u joogina waxay wadeen siyaasadda guud Amazon iyo ka ilaalinaya sanad mar bal cusboonaysiya way hadii la Amazon shan damay soo Soomaaliya wax ka caysa oo shan sano anaka miyaan fadhiyeynaa bal ma baaba baan hayna sanad bal loo cusboonaysiya sanad bal waa khiyaano sanad baa Amazon loo cusboonaysiya intaas milyan baa ku baxda lama ogol ciidanka Soomaaliyeed in la qoro ciidanka Soomaaliyeed in tababar fiican la siiyo lama ogola sarkaal fiican oo Soomaaliyeed in la qoro lama doonayo taa militariga waxaan jecelahay qaybta dambe ee barnaamijkan ku qaadano laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo some oil and gas hadda muddo dhowr sano ay jirtaa waqtiga ay jirtay oo soo shaqeynaysay oo marxalado kala duwan ay soo martay oo dad kale xataa isku kala bedeleen oo xataa hadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qayb ka ah iskaga baxay muddada maxay qabteen okay waxay qabteen saddex shir ba qabteen saddex conference ba qabteen konferensada ay qabanayaan wixii iyaga kontraad bixinaya moogtahay kontraadda dhulkooda iyaga baxsanaya way raadka u leeyihiin oo 60,000 square mile ay leeyihiin ay raadka u iyaga bixinaya dawladdu bas saxayso waxna kuma laha so kambareedii inay aaminaan baa la doonay ay aaminaan oo kontraad ay yiraahdaan kontraad ay qaataan moogtahay saddex conference bay u qabteen conference-kii koowaad wuxuu dhacay 2013 October buu dhacay kambareegu muxuu jiraa marka kontraad maxay haysataa August مالسي لحظة دي بالصحيح أكتوبر كدودة دي الراتيفيكيشن قال سميه نوفمبرنا أكتوبر نوفمبرنا وحيحمر كوقبتين وحيكوقبتين أي من لندن وحيكوقبتين كونفرنس والشركة أدوك وحقوضة مرك حرونت حيكو تعالى إيش كوي كم بنيك سام أويل أنكاس أيش لندن مكيا لا أدريس كسي وحسي وقرية وسوق بكسر وقرية السوشيال ميديا هنا وقرية أدريس كمر بيشج كريان وأنا بديت كده وحي نمكي وحي يقولين بانيريتا الصومال ولا سقطوا مرك حويان كونفرنس كاسي قبتين Soomaaliya way ku bartaqaadeen waxay yiraahdeen war kambaniyadina aamini maayaan inaan anaku saxeexno niraahno Soomaaliya shidaal ka baadho oo dawlad hadda ah annaka nima aaminayaan kaala idinku maano oo wasiiradiina iyo madaxweynaha imaada marka way baqeen waxay yiraahdeen ma imaan karnaa warqad baa loo soo qoray warqad ayaa qoray agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka hadda koobigeeda war haya waa mirtigrey Soomaaliya iyagu u diray warqadda muxuu ku qoray arrimaha Soomaaliya oo cakiran dartood conference kan arrimaha shidaalka Soomaaliya ee Soomaaliya gas ay qaban qaabisay kama qayb gal karna ilaa lagu qabir kama qayb gal karno warqadii bay ku dhigsadeen meeshii kambaniyada tusayaan Soomaaliya way imaan weyday laakiin raalli bay ka tahay shirkani inuu socdo raalli bay ka tahay shirkina waa dhacay dawladda Soomaaliya ma joogto shirka dawladda Soomaaliya ma joogto waxna kuma laha cid matelaysa oo dawladda Soomaaliya oo meesha fadhiisay ma jiro عدة شركة سوقي ما نسوي أجنبي وأجنبي يكمبنيو شدارك الصومالية دنيني وظهر القلبات كله وظهر القلبات حتى أفريقيا كم يجرون حلم دعية وشركاسي وحول دعية إن أكتوبر 2013 كي واقرت حاجة صباح يا مر وحول كم صباح صابته شركة دي ويأمن وعين قلنا المركز إلى الصومالي والنوع هذا إليه كل صومالي ويرانيا وحني كبقيين شرعيات بدونية شرعيين بدونية أوكي وحكوا كلا سوق قالي إن ماشي كسماي دولت كذا هاي اللي قد قالمي إن لبحنايو دي كمبريه هرسيات برسية صباحي ياكي بعد نوك عندك عليه شرعي جرى عالمي وحاجرة هديكوا تراد وسيو وودك كتراد الكسية وحلا فارس ماتشار وكله فارس ماتشار وح أود بلا آدم ككوين هذا كله ودلك دن ودم هذا كله عضو كتراد هذه on hold وتجنانسة لا دولة كلام شكتي ما هذه كنت سنة كتراد هذا هاي مالته هالكاس اللي يقول لك حيا الحرة يعني مالتي ودك هاس فارس ماتشار هكبحه أو exploration اللي بلعب كرو كو مالته سيكون بلعب سا كنت كاس ما عادش بلعب كو بلعب سا أنت دلك كان صوف كونتراكتير وحكم بدل كرتيد سيدي بوهانيا سيدي بوهانيا 51 Soomaali 49% adiga ale kambaniyadiina taas la yuurada taasana Soomaali dan ugu jirtaa ma ogtahay kambaniyadiina suuqa baqlan waa hadleen Shell baa hadlayo Chevron baa hadlayo Sonocom baa hadlayo waxa hadlay maxaa kii martaqaana Chevron iyo Somo wixii oo dhan baa wada hadlay kuwii martaqaana wixii anagu shirkad meesha ka soconaya ma aamin karin wixii oo dhan baa hadlay ma ogtahay oo annaga waan imaanayna baa la yiri kuwii shoog bay qaadeen ma ogtahay waxa Soomaaliya مر لواد بيخدنا شركة لقبتين أكتوبر 2014 كي سلالنا بالو قبنايا ها وسنة كذب أكتوبر 2014 كي 20 أكتوبر 20 بالغبت لندن
كان وحلو مرتقد مدحوين حسن حاجي وحلو بات وزيرك سليدة يشن أقويهن بالكم مرتقد سوور كود بالسوقش مقعودي منتك أي حليان تايمك أي حليان موعول مثل البكار ويب سايت كي لو سوق الشركة وقولوا قبل قابلت الشركة كو سوقرتي واكتوبر 20 بو دعay 2014 كي marka اكتوبر 2012 كي اي تاي اكتوبر 12 كي 20 شركة دعay waa 12 كي 8 عشان ka dhiman bar marka Somali Journalka aan weydiisay interview waxa Columbus waxa Somali Journalka interview saan oo kala siiyay waxaan oo horena waa ka soo hadlay dhowr jeer hore aan soo hadlay waxa kan shirkadu inay broke tahay inay tahay waxaan la yiraahdo broker ay ahayn كمان يسوي حقوقه وسنه ودلال يا بروكر ودلال هي كمان شغال سهل هي كمان عده اسكال اي رجل مدح اي تahay كمان متقنا Soomaali ay waxba ku lahayn waxa soo dhan hor u faafiyay moogtahay baaba taqana ay tan soo dhajiyay markii waan la sugay waan la gaaday markii sidoo casho ka dhiman tahay way wax fresh hadii kale waa la dugoobaya warkii la Soomaali London waan focus ku saaray inay mudaharaad ku sameeyaan Somali Journal oo London mu ka furan yahay xaruntiisii tahay baan siiyay waraysi xiisab badan waraysiga baan waxaan iri madaxweynaha Soomaaliya waa ka uu ku qoraya madaxweynuhu waa khaa'in wadan baan iri shirkadan uu shaqeeyaa way bay garanayaan baan iri wasiirku waa khaa'in wadan waa la bay garanayaa wadankiisa uu shaqeyn maayo shirkadan buu shaqeeyaa si shirkadahaasi u aaminaan qoladana kontraad ay u bixiso nimanka bay u joogaan focuskii madaxweynaha baa saaray waa ku guuleys madaxweynaha waa baaqday ilaa maadi xasan shakhsiga kama qayb galay shirka waa ka baaqday ma sawirkiisa waa ku qoran yahay oo company-gu waa u casuuman yahay oo khudbad ku qoran yahay ataytalkii wuxuu ka hadli lahaa ku qoran bay minadkiisa ba ku qoran shirkina muutagin maxaa dhacay ka bacdi maxaa dhacay wasiirkii baa tagay xasan markaa embarrassment xun baa ku dhacay markii awal buu interview badan baa la sameeyay madaxweynuhu baxaya shirka loo muutagaya bahdil baa ku dhacay xamar uu iskaga baxay wuxuu aaday Paris baa aaday October 17 Paris buu tagay total buu tagay heshiis buu soo galay iyadoo nin wasiir la socon nin senior governor inuu cid la socota idin jirin madaxweynaha isaga shaqaaleeysa xafiiska waa siyaanina bila Soomaaliya oo la socdo kaliya wuxuu tagay Paris wuxuu la saxaday oo TV-da sheegeen inuu total of France ah inuu la saxaday heshiis kaas oo la saxaday war halkan warqad heshiis ku jirta halkan warqad heshiis ku jirta faylka dawladana leeyma helay baarlamaankiina ma oga war waxan dalka iyo iska leh waa maxay dalka jeebkaaga faylashaada waxan iskaga jira ma ogtahay October 17 موقتها إلهي أمريكي نكى توتال هايستي وهشيس كلا سوقلنا روش بو هذا واحد ديار دول صار حضيبه واحد ماشي كل أنت موقتها شركة أمريكا لا هذه لأنه قلت كلا ويقبضتي محل لنا مركز شركة قرب سعودة لأن الشركة وحكي قرب سعودة إن الصومالي لا مال قشطه الجنوب يقول مال قشطه وكاسة الصومالي قيمة وحولها أنت الجنوب يمادان ganacsatada Soomaaliyeed in shirkad timaado dadka lacag leh ee dawladda lacag ma hayso moogtahay in dadka lacagta leh iyo shirkadahaasi ay maal gashadaan Soomaaliya oo shirkada sameeyaan dawladuna sida Mareykanku waxay ku heshaadee lacagaha taxka un bay urursataa moogtahay lacagta Mareykanka bilyan iska ah dawladdu hal project ma laha shirkadaha maalka un bay ka ururaysaa saas baa mataqaanaa la yiri Soomaaliya bay ahayd moogtahay shirki maal gashigii madaxweynuhu inuu maadibay haduu sameeyo ra'iisul wasaaraha inuu maadibay ra'iisul wasaaraha haduu wasiirada inuu maadibay hadii أنت ما تشرتوا وفدرال الله ودولة الصومال كسعت دولة الصومال فدرال كسعت فدرال وحتى يبونت الآن عبدولي كاسبتي وجدتهم حياه وجدتهم حياه هاي لبعض الشيء اسكمال بالغفتي لما أجين قولنا كنا ودتي أو إنترس جروب كان بروكر أنت ولبعض الشيء اللي عندك كدعي أو إيجلن كدعي اسكمالين بيدعي اسكو ساعد تان إن ضماني قلبه فرمية قولنا وحق قولنا هراء أي قبضته أو قولية بيزنس كا هو بيزنس بروية قوليها كان فنجرنا وحاس كشقة مال كشقة الجنوبي ضدك سكانة قوليها سكانة إسبرة وحاس قولنا قبل قابسي وما بدل السوق قولنا وكذلك شيء كود قرشوديها كود قرشودي بها بوبسيس حتى مرة بيكون واقعين بو هو بوبسيس بركة قولنا لما تقولنا السوقين بركة سألوا ويسكسوا هذه لما بدل كرر لكن ودلهم بدل كلمات وحيل عبد الولي قاص ونوتك بالي مجلس الصومالي جرائد كمقدشة كهالي ويقرع ستة حمر وحيكون نقطي عيب يكون نقطي والحمر وحاجة ورق مليونير ماني بليونير ما تكونه وهذين متقليها لو ودك غالي قلي كراي تشوجا وهذه بنادي يقول لك كونفور أوردن واحد شوجا هذه لك حيو ده يبونتلان الصومالان لكنه مش اللي جيو وسير تجان وبرايم مينستر وحبي حال الله هيد عبد الولي قاص بالتني بركة وحلا أركي عبد الولي قاص ده وحاول ومعمول قبلات وده إنك ما مترون وأنا
puntland xamar waa una matali waay madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiirna matali waay ama noo geey waay xaq loo leeyahay waxaan rabaa inaan fahmo maxay tahay sababta loo geeyay cabdiweligaas meesha cabdiweligaas waxa loo geeyay dawladdu xooga hal meel bay saartay waxa kan dadka kan waa maadaama tuugta oo xadayso hadii qofku yiraahdo waa wariya waa cararaya moogta dareen baa ku jira iyaka dareen baa ku jira yaa waxa la ogaan waa la qarqarinaya wixii already anna waan ka hadlayo jaab baraaska wuxuu waa galay anna meel walba maanan xishoon waan galiyay intaas TV baa soo faris oo 15 times ma ilaa inta 3 sano 4 sano baan inta soo hadlay moogtahay teleconference Soomaali oo baan ka hadlo oo phone aan moogtahay marka labadii shir kii xaqii madaxweyne ka baaqay aan soo ururiyo ka baaqay wasiirkii xaqana tay kar Cabdiweli baa tagay marka Cabdiweli shacabkii xamar London joogay baan ku kiciyay in mudaharaad ku sameeyaan waa lagu mudaharaaday boralka la qaatay shirka waa fashilnay marka waxba kama soo shacabkii xamar London joogay aan ogeyn aan ku kiciyay boralka watay baa shirkii fadhiistay oo meeshii baraas ku qabsaday qolkii iyo wixii ku qabsaday oo maartay shirka halka waa burburay Soomaha shirkaan baa burburiyay amri ilaahay soo ma garan madaxweynena waa ka sii baaqdayba federaalkuna kii xagga meeyay waa ka sii coobeen inta soo coobaa horta meesha sanadka ka soo baxday 2014kii muraar dilaaxaas ka dhacay meeshii moogtay Cabdisalaan sheekadu way dheer tahay waqtiguna aad buu noo hayay inagoo soo koobayna waxaan rabaa inaad ii sheegtid khatar intee leeg baa Soomaalida ugu jirta ama faa'iido intee leeg baa Soomaalida ugu jirta labada dhinacba haddii company-ga Som Oil and Gas uu si dhab ah uga howlgalo gudaha Soomaaliya oo uu soo saaro kheyraadka dihin ee Soomaaliya ku jira horta way adkaanaysaa inuu soo saaro anigu asaan aaminsanahay waayo baarlamaanka Soomaaliya information badan ma hayo dad cusub haday waxan dhageystaan iyaka waa in la wareysto waa in la yimaado waa iyaka laga wareystaa la yiraahdaa oo qaar taageera way iska jiri karaa laakiin xog bay rahayn qaar in badan dhageystay oo dhahay war waxan waa broog oo baarlamaankii hore midna kuraas isu qaatay ciidamada diiday midna badi soo celiyay kii saddexaad ma taqaana loo sameystay madasha loo sameystay oo iyaka dhan waa laga takhalusay baarlamaanka kii ka horeeyay ee Xasan Sheekh madal baa loo sameystay 1 year waa la xuriyamay 1 year complete wax ma qaban waa baadil lagu sameeyay shacabka Soomaaliyeed ma ogtahay marka waxayaan faa'iido inoo ku jirta in kama jirto khasaare mooyaane waxayaan 100% intaas iska leeyihiin dagaal ay abuurtay already dagaalka Puntland iyo Galmudug waxa uu dhacay oo inta uu socday cid waday waxay ahayd Som Oil and Gas faras hore ayaan ka qabtay oo intaas jeer baa ka hadlay Puntland baa tagay oo aan yiri waan ka hadlayaa Puntland way diiday xiraarama lama hadlaayo federaalka taabanaysa way diideen in Puntland TV baa la yiraahdaa dawladda iskale oo Puntland TV way diideen laakiin dibadda waxa jira way marka nimanka bataqa journalistiyaasha xamar gudihiisa jooga ama dal gudihiisa jooga Som Oil Gas kama waa la dilayaa hadii ka hadlaa bisidq waa la dilayaa way aniga igu yiraahdeen kuwa interview aan weydiistay oo TV-yada North America ay wareyseen marka Soomaaliya tagayna ay yiraahdeen oo isla TV-ga xagga ay wareysay xagga marka anta ay yiraahdeen wareysa ma bixin karno Soomaaliya waa tahay gunaanadku waxa weeye faa'iido ma hay waxa biyaartay faa'iido kuma jirto laakiin aynu mid kale shacabka Soomaaliya cadayno ninka meesha ku qoran weynaynu credit-giisa eegnaa ninka waxan ku qoran aan target gareyno shabla saameyn inta lag balada marka Soomaaliyaankaas saameyn inta lag bayeelata ilaa imaan soo jirtay maxaa dhacay dhacdooyinkii ugu waaweyn ay dhacay intee soo jirtay oo dagaal ay abuurtay horta dagaal ay abuurtay deganaansho la'aan walkiiba abuurtay baarlamaankii khalkhalka baarlamaanka lagu sameeyay abuurtay ra'iisul wasaarayaasha la eriyayo saacid waxa loo eriyay waa Som Oil and Gas markuu sharciga liisan ogaanin Cabdiweli Gas baa yimi ra'iisul wasaaraha Ingiriiska laftiisa arinta daradeed ma soo casilay ha waa TV-ga hore ma wareegis waa bixiyay waxaan Cameroon wuxuu soo casilay waayo wareysida aan bixinayay oo London ma laga shaadinay moogtahay jaraa'idka Ingiriiska waxa qaatay markay qaateen way qoreen Som Oil Gas iyo wixii ay qoreen conservative conflict of interest ra'iisul wasaarihi in kii ka horeeyay soo markii wixii la qoray ama taqaana waxa si ra'iisul wasaare soo ilaaliyo Ingiriiska federaalka waxa uu qaabilsan FO shirkad la yiraahdo waxa weeye Federal Office-ka qolada qaabilsan baa martii xafiis baa jira marka FRO xafiiska baa taqaana ra'iisul wasaare hal baaridaas waxay ahayd in dignity-giisa la ilaaliyo sharaftiisa la ilaaliyo oo la yiraahdo jaraa'idka waxa way qoreen waxa la yiri war waxa ku jira Lordski baa ku jira ra'iisul wasaare Ingiriisku shirarka London buu qabtay irka wixii ana ka hadlay moogtay TV-yadii ku yaal London baa wixii sheegaya
soomaalidii baa hadlaysa ma ogtahay oo qarsoodina barnaamijii baa dhacaya ma ogtahay marka waxaa dhacday in ay qolada faroorka la yiraahdo ay baartay marka faroorka markay baartay xoogaa uu maartay naftiga ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska 2015kii marka waxaa la sameeyay bari exitkii referendumkii baa waatii loo batay in la baxo naftiga ka soo baxay Cameroon markaasaan waxaan yidhi de Cameroon markaa uu iscasilay moogtahay wuxuu yidhi laakiin sabab bari exitkii sababtii darteed waan fashilmay daawal bari exit ku raacsan xisbigiisa watay ma aha marka imaanu qaldayaa moogtahay ma qaldi kara aniga moogtahay يعني سوف في الجيم أنا وحسين عشان يموقتها بركب بريك سيدرت وانفشل ما يسعسلي بيقولي محوس عسلي إنه هو بيسمي إمبيشمنت هذه إمبيشمنت اللي وصل إيه رتوشي شو الإمبيشمنت اللي وصل منه واجي وحامود ري حرق أو إمبيد إنجليز أو ليبر كا بان أودير السوشيال ميديا هو أودير إنفورميشن بان أودير ما تام الليبر كينا هاي ونحن جاي بلابتي ويسعسلي وحولي أرتوي عسلي وحنسوا عسلي بريك سيد كانوا سوا عسلي وتعبد سلام markii barnaamijkan sameeyay ama hindisaha som oil and gas meesha la keenay Soomaaliya kheyraadkeedana isha lagu hayay oo muddo dheer balladanaynay markii dambena company-ga loo sameystay sidii shidaalka Soomaaliya gas ku jira ama badha ku jira ama bari ahad loo saari lahaa laazim dawladda Soomaaliya in loo tago oo lagu qanciyo in company-gan uu yahay company kaliya arrintan isagu ehel u ah oo hawsha ka shaqeyn karaya shacabka Soomaaliyeed barnaamijkan daawanaya waxaan rabaa inaad uga jawaabtid ama aan ku weydiiyo maxaa dawladda Soomaaliya lagu qanciyay si ay u ogolaato in company-gan uu ka hawlgalo gudaha Soomaaliya Soomaaliya waxa lagu qanciyay sidii Congo lagu qanciyay wadanka Congo xorriyadda ka hor boqorka iska lahaa xorriyadii kadib ilaa maanta waxa iska leh shirkadaha iska leh company ajnabi oo wali hal company u badan dheemanka company baa ugu weyn laakiin dhowr company weeye wax barafida shaarina iyo wax haba yaraatay ay ku helayso dawladda mataqaanaa Congo ma jirto haba yaraatay ma jirto way Congo gacanta lagu qabay ra'iisul wasaaraha baa la dilay baatir islaamada wasaabtu loo dilay waxay ahayd xogayii guud qaramada madooda baa diyaaradiisii la soo riday arrimaha Congo loo soo riday xilliga maanta United Nations way baarayaan baaris waa United Nations-ka qoraal bay qoreen ay mataqaanaa leeyihiin dhag hanishood arrintiisi waa laga samrilay waayo diyaaradiisii diyaarad baa duqaysay diyaaradana waxay ka kacday Katanga waa qoladana wato qoladii Lamumba lagu dilay waa meeshii Lamumba lagu dilay marka waa conspiracy oo weyn oo reebad ku jira ba meeshii jiray ilaa xogayii guud qaramada midooda oo Western ah oo Swedish ah loo dilo oo kaligiis ma 15 senior officer United Nations ah oo Congo crisis aynay dhameeyaan oo Katanga ay soo noqoto shirkatanga loo socdo bay hay radisha marka loo socdaa ba diyaaradda loo soo riday ما وقتها marka waxay tii conspiracy nooci been ku jiraa waa dhawayto lama baxaa kiima kabila korin labila baa ma taqaano oo baatir islaamada xilligiisa gudoomiyaha dhalinyarada Congo ahaan jiray inta dambeysana refugee ka ahaa Tanzania oo kan hadda sawirkiisu Tanzania ku dhashay ma waqtahay korin labin baa yiri de waxa kan niman wada fiirsano oo shar weyn qaadana waxay dadka hore loo qabsay innakana wala in haystaa waxa weeyaan ciidanka madaxtooyada jooga laba kaar bay leeyihiin kaarka dawladda iyo kaarka security service ka Belgiumka waa Congo ka hadlaya laba kaar bay haystaan laba mushaar bay qaataan laakiin ma la oga moogtahay waa ilaa marta ila basaasiin si ilaa ruma wixii lagu dilaan saasahay marka weeyaan markii ninka Lori Kabila uu hadlay xafiiskiisa kursigiisa saa isagoo fadhiya kuwi ilaalinay irda joog mid ka bada xabad ku dhuftay tuu galay buu ku dhuftay taas ku dhintay waa dawladda aan meeyo waxa la yiri ninkan waxa la yiri marka xabad ku dhufato dabaqa labaad baa la jooga hoos u daadag gaariga hoos ku yaala ee hoos ku oran ku carar laakiin wala dilaya moogtahay mid kale isaga meersu taagan barkay waxa rabaa kiiska raad in loo waayo hoos u tagaya gaariga markuu soo daaqada furo dhadhadhac mid kale oo irid taagan ba ku furay isaga si sugayay kii isaga dilay baabarka la soo qabtay hay dawladda soo qabato hay maxkamada tirana kiis iskala sugayay أنا وحنا نكمل مدحونا دليل عراري بدليل ما قبل كر لكن شكله وحي كوريس يقول له مصعد شكله وحي كوري وحي لا مصعد قانونك عالم واساس وقتها أنا وحكي وري لا مصعد نكمل مدحونا يجيبوا دليل وأنا عراري يرد قارده قاري أنا كفوا دور ربع كم قارة وين الدليل أوبشن ملهي نكمل سيزون كوب بدال ويل كيس أو شو كتانجا 1000 مايلز وشيرة متقنا ليبودي بيل محيط كنشاس وشيرة بامرت كتانجا لا سوق هذا كتاشا laga soo qaaday helicopter baa lagu soo qaaday isaga kursiga lagu fariis baarlamaanka ma oga guriga wasiiradu ma oga bal wadanka sida loo haysto arag maarta bahdilka nooca la eeg
markaasaa Joseph Kabila baa martaqaana kursiga lagu fadhiisay kulii wasiirada ma saxan waa martaa wiil yar askari ah 29 years old askari weey sarkaal ma aha ciidamadu ku jira ciidamada infantry-ga waa wax wadankaasi loo galay tii conspiracy ba maanta in haystaa waayo iyada mar hore laga gaaray moogtahay laakiin innaka mataqaana waartay saasa maartay la gaaray marka shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa war shirkadaas conspiracy-ka noocaas lagu shaqeysanayo ee 100% leh ee ninka ku qorani uu yahay Interpolka adduunku waran u jaray most wanted ay ka dhigeen oo la soo qabtay 2007 laga soo qabtay Hindiya laga soo qabtay oo United Emirates ka soo dacweysay oo Mareykanka soo dacweeyay oo South Africa soo dacweeyay oo Canada soo dacweeyay meelo badan laga soo dacweeyay waranka waxa jaray Interpolka bilis caadi ma jarin dal kalima Interpolka adduunka jaray ninkaas Interpolka u jaray nin 12 kambeeno hore West Africa ka dhisay oo wada gaas iyo macdan ah oo kulli suspend laga dhigo maanta mid ka shaqeynaya jirin kulli waa baarkirit markii la ogaaday heshiisyo faraar uu la galay wadamada liitu la galaa war ninka waxa khidada ku shaqeysanaya ninka war khayraadkeena ku Amerika ilaa inta ku dhashay Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya dan la hadlaya moogtaa war ninka faraar ka sameeyay ninka Interpolku uu qabtay ninka Mareykanka 99 ilaa 2013 inta ma taqaana dacwadu ku socotay shirkadaha Mareykanka waa weyn ay dacwadu ku socdeen ninka Soomaaliga soo dhisay ninka u dhisay fundraising-ka ilaa 2005 recordkiisa aynu hayno oo ninka u shaqeynay dilaalka u shaqeynay war qarankeena ku aamin karnaa weey وسؤال تاجر واتهاي سؤال سربا أنا كوسو جبي برنامج كا واتهاي داوديال أنت سنكوسو جبي إن برنامج كلا هذا الأرتيان واسيتو سقط داونا سنتي في أرتيان برنامج كحين لسه عسين يعني جو محمد يمني وحنا مرتي جوها عبد السلام حاجي إسماعيل وأقويها صوماليات أو كفالو ده أرمها خيرات كدبيعة صوماليا برنامج كان ميدلا ميدا إنتانو دبو كل مدونه جود هم بداوديال وحنا كي تيجي ناس داسيو نبت كلي